السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام بدمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة سيتهين في عنتهين من نبذ خبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملكستو أدونك جوكتان إيسو دواذا نو سو دواذا خيري فرحة سو دواذا اسكسو نقط كله أو وناكسن وماموانا إيه مركل هالكا أن جوكنا وشانل كيني ماموانا إيه ساحي بدا قالقة aniga maamwaano waay adinka saaxiibadii waay soo dhawaada welcome wixii dhiirigelina waa inaga dhaxaysaa waxaanu adeegoyaa qolalkeena hoose ee dabiib iyo dadaal sabar u lahaada marba waxaa idiin soo galaayo kumanaan nafaqaana faraqa ku haysataan tartiibtiina dhex mushaaxa take your time haye bun haddii la waayaa layidhi bedelkiisa la waayaa inta aan qolalkaas heli karin ama programkaas privateka ee nafaqada laga barta aanan heli karin adinka isla tacaala dhiirigelinta qaata qalbiga dejiyo ilaahay idiin dejiyo soo dhawaada meeshaa meel dhiirigelin laga dhageysto waaye muhiimadeeda dhanaaba saas meesha waa meel waano anigu waa maamo waano adigu waxaa dhageysataa waa waano haddaas rabti dabiibi dadaal inta ka ballanso nambaradaas fartiinta ku reeb cod ahaan salaanka bacdi iskay bar ilaa kumaba aqaano youtube iga dhageysatay dhiirigelintaa xoogaa ku cajabisay waxaa istiri amaa nafaqa barataa maamada la xiriirtaa marka iskay bar xaas miyaad tahay da-daadu waa intee dhakhtar muu tagtay waxaa ka cabanaysa waa maxay aniga waxaan ka hadlaa waa fahanta sooma dhoodhoojinta dhiirigelinta caafimaadka waxaan ka hadlaa dee wax kaa quseeyaan dan adiga qaybtaada waa gooni dadka lama mid tihid ma fahanteen marka qof walba waa gooni waxa adiga kuu qaaska ah waa inaad ka hadashaa haddaadan taada ka hadli karin dhibaa jiro marka waa inaad taada ka hadli kartaa haddii marka inaa ila soo hadasho iyo inaa ila soo xiriirto inaa iballansato iyo intuba hadday kugu adag tahay dhib male ilaa 8,000 oo videoa meesha yaalo kusoo naso wax kala dhexbax okay marka dhiirigelintu qofun bay muhiim u tahay waxa ku cajabiya maaqaan tabiga aragtay maaqaan ma ogxaantaa ka hadlaysay ma caafimaadka guuda ka hadlaysay ma caafimaadka gaar ma caadadii baa weyday sidee wax kaa yihiin dhiirigelintana ku qalbi diirso wax kasta waa qadar alla sax qof walba wax buu soo maray waxaan marayna wax khayrla allah ka dhigo wax sahlan allah ka dhigo hadday adag tahay ilaahay baa garanaa adaa garanaa allah kuu dhimriyo allah qalbiga kuu dejiyo hadday waxaa soo martay wax fudud tahayna alxamdulilah wax dhibaba weligaa haddaadan arag alxamdulilah haddana allah ka ahaayo ducayso soo dhawaada welcome amuurta khayr allah ka dhigo allah nooga dhiga dhammaan saa korka aragteenba dhuubnaanta cayil iyo caato fertility-ga ama caadeynta ama hormoonka dumarka wuu dhaawacaa qofkaan ogeyno ogow runta dadka waa u roontaha layiri laakiin waa ka rooraan aniga maadaama aan dadka kala shaqeeyo inaan ciladihiyo sidooda ka caawiyo kala shaqeeyo si ayagu isku caawiyaan allaha caawiyee adiguna dhiirigelinta isku caawi hadduu cayil zaa'ida jiro iyo haddaa xataa meel dhexaad iska tahay laakiin xoogaa xulusii wax iska leedahay iyo hadday caata saa'ida jirto intaba waa wax u baahan in la fahmo soo haddii cayil uu jirana caatada waa inoo muhiim haddii caata saa'ida jirtane xoogaa in kor loo soo kaco oo healthy weight la lahaado waa muhiim marka waxaan arkaa gabdho dhakhaatiirtu ay soo buriyeen lagu buriyey hormoonkooda inuu isdaba marsan yahay cayilaa jiro hormoon qalqalaa jiro waxbaa iska tacabsan marka dhakhtarkii waxba kuuma qaban karo ibni aadankuna haddaa xasaa istiraado runta u sheego qoftaanay waad cayilanta iscaatay aad dhahmaagto dadaa caroona dadaa dhakhtar xun uu arkaa marka inta dhakhtarkii u caroon lahayd waxaa la qaatay inuu xoogaa maadaama asiga dhakhtar yahay oo xoogaa kaa aqoon badan yahay inuu intuu ku sasabo albaabka kaa bixiyo inta qofay sasabeen oy ku direen waayaha kuu run sheegi doono ilaa qofaan tiisa aragto kale ma arki karee faraha laguma koobi karo maalin walba dada intay sasabaanay albaabka ka bixiyaan oo iska okay waa way dhacdaa meedhib ma lahaa xogaa adiga daweydka iska ridi karta iska ridi dhakhtar saani wax makuugu sheegayo af soomaaliga waxaa ku jirta kelmad la dhaho dhakhtar sidoo wuxuu ogyahay uma sheego waxaan anagu rabnaa dadweynaheenaan caadiga rayadka waxaan rabnaa sidaana idinla hadlaa aniga oo waqti juhdi maalin walba idin gelinayo ka badan in lagu geliyo in fact cudurkaaga caafimaadkiisaba inaa hesho waxa uu cuni lahayd in lagu baro ood hesho ood halkaa ka baxda for free sometimes lama ogolo waxaa loo ogolayn de waa in wax lagaa helaa sometimes laba wadanaa laysku diraa si hub looga kala gado
oo millions midka kale midka kale u ciil qabaa oo isleeyahay awoodiyo kuu sheeganin marka millions oo bixina awal millionkaas maad hayday bira meel iyo bambaad meel la fadhiday iyo madaafiic yaa kaa rabay xidne waa la iskugu dhiibaa sometimes xataa waddanka wuxuu dhiiba ma leh waxaa la yidhahdaa inta ii xariiq malaygaagan guranaa inta ii xariiq maxaan ku rahdaa macdantaadaan la soo baxaa inta ii xariiq markay nabadu dhacdo 20 sano ka bacdi macdantaadaan la soo bixi doonaa dhulkaaga hadda maba aha hadda dad baahanaa meelihii ordaayo dad dagaalamaayo oo iga dilaayo injineeradii waxa markay nabadu timaado laakiin hadda iska celi hebel iska celi afka dhulka uu geli contract ani adiga aan fahmi karinaa meelahoose ka dhaco guraad leedahay waxa badda ku jiraba guro laakiin isii madaafiic ninkaasaan cashir lama iloobaana ugu dhigo marka gabdhaha dhaqaatiirta u tagaayo qaarkood ayagoon qalliin u baahnayna qalliin loo diraa okay because ma fahansanid waxa kaa qaldan gudahaagiya cilad aadan qabinaa lagu sheegaa markaasaa weliba hadalka lagugu kalaan kalinaa lagu leeyahay waxaasaa ku haysto khataraa geli inta saxiixiyii magacaagaa lacag lagu qaadana aadna qalliinkii amartay hadda in lagu qanciyo waaye qalliinaa lagu dhahee waa kuu riixriixa maa lagu dhahay meesha mafaataxa laysku maraa waa in qalliinkii lagu mariyo lagu qanciyo in lagu qalay hadhowna aad tirahaa waa lay qalay cilad hebelo waa layga qalay waxaan waa business okay adigase businesskaaga waa maxay inaad ducaysatid inaad shilinkaada gooskaaga bartid oo dheef cuntid oo dhuunta qabowsatid in aad noloshaada raaxa ku haysatid farxad ku haysatid wadamo waxaa jirta aan laga faa'iidaysan karinoo waxay cunaan dhanaaba iska wada fitamiina cunadooda dhanaaba iska daawo ah sooma soo dhuldhacaan tabar li'i iyo dhiig la-aan iyo burooyin iyo ilaahay baa keena cudurka laakiin maleh xataa caafimaadka dhimirka waa juusto waayo hadalkooda xigmad leh hadalkooda xigmadda leh isticmaalaan gabolku markuu dhaco bannaanka cidna kuma arkaysid sida xawayaanka u xaroodo shimbir oo ordaysa ma aragtaa saq dhex meelaha biibiibays waa may waxay iskugu maamaano shimbirahaad ka aqli xunta ka fariisa magaalada habeenkii waxayna indhaheennu arkaynin baa maro magaalada dad kalaa nala leh ka alla magane laakiin haddaadan adigu waxba fahansanayn meelaha warwareega aakhirka heblaayo waa waalataa maqle hebel waa waashaa maqle ka alla magan marka qoyar socod qodax ma mudday tir Soomaali alxamdulillah khayr allah siiyo dadkeena hore way noo maahmaaheen qoyar socod wax walba ka fiirso hadday waxa laga hadlaa faa'iido kuugu jirto dhagayso haddii raad raaco saaxiibkaa kuma caddeeyo kuma madoobee siduu yahu kaa yeelaaye haddii raad raaco faa'iido kuugu jirto deen raad raac anigoo kale hadda maxaan ku dhahaa ducayso inaad ducaysataa haddaadan u arag faa'iido den don't worry anigaa igu qarbixina faraha iga qaad afkaaga la ammaanaan ka helo ilaa qof aan ducaysanin daar ma dhisto okay ducayso daarta lagu sheegaa daar caadiya maahayaa inaad nolosha fahanto inaad farxad ku noolaato inaad qalbiga kuu dego inaad ilaahay u xamdido inaad ilaahay u shukrido inaadan jisaar ilaahaygii ku qalqi aadan ku noqonin halkaa ka bax daartaa kaloo adduunyada dad heshana de alxamdulilah ibni aadanka aqligiisa indhuhu ku jiraay marka danahaaga fahan dhakhtarka way soo bursaday maxaa sameeya lase waa caataa tahay 50 kiilo ka hoosaaba tahay dhirirkaaguna waa dheer yahay qofaad la eg tahay meel dhexaadaa tahay ama dhirirkaaba xigtaa lafahaagiyaa muuqdo dabcan maxaa qaldan ma tayroodkaasaan kugu gelayso ma sokoraa kugu dhacday oo dhiig macaanaad la liidataa ma bakteeriyada caloosha ma adaan cunno fiican oo xayiho qof ku dhargo aadan cunin ma howlahaagaa badan oo faad burning-aad samaynaysaa ma maskaxdaad xoog uga shaqaysiisaa waa tii la yiri maxaan ku idhahdaa hawa durugta wiil doorahey halow ka tuurtaaye fikradahaagu haddii aad u badan yihiin de maskaxdaad ka shaqaysiinaysaa intaad maskaxda ka shaqaysiinaysa ood fikiraysayna de waad oontay haa cunto fiicanaadan cunayn cuntooyinka wax u dhexeeyaadan cunayn biyo badanaadan cabayn maraqaadan cabin caanaadan cabin hilibaadan cunin qudaaraadan cunin fitamiinaadan laqin intee ka keenaya waxaa ku naaxday qof walba wuxuu cuno ciidamyahay wixii baa markii lasii kala dhex galayba xataa muujad tahaye xagee ka keene xisaabtan marka xisaabtan dadka qaar ee dhoodhooban maaha inay dhuuni waayeen timekay ku cuni lahaayeenayba qaldeenba maanta oo dhan waa layska baahan yahay waa lasoo fadhiyaa hadha waa lagu leeyahay waa aniga dhan waa qayirme aniga dhan waxaan ku leeyahay haragaa noqday maanta oo dhan markaad baahneed ood qataneed ood soomaneed
ma xisaabtamaysid iska dhaaf inaa korka ka qalashee gudaha laga qalalaa ugxaantaa laga qalalaa caadadaa laga qalalaa gabdhaha underweightka zaa'idka way caada joojiyaan cidda arsi soo weydii gabdhaha zaa'id u buurbuurtayna dhiig la-aanaaba ku dhacdo dhiig waa ka joogsadaa qaarkood dadka qaar magaalada haddii albaabada loo kala furaayo dhiigooda way helaan ilaahay waxba kama yeelin laakiin dadka qaar wuxooda kalama haraan way israacaan marka xisaabtan qof walba wuxuu cunoo ciidamiya ciidamiskaas xataa oogadaadii siday u egtaa maaha ilaa maskaxdaa isduqayso cunto bilaa nafaqaaba haddaad qaadato maskaxduna waxay u baahan tahay brain boosting food maskaxda brainka cuntooyin boostigareeya u baahan tahay wixii boostigareynayaba haddaadan cunaynin xageed ka keeni maskax xasuus fiican iyo maskax degan oo xasila iyo maskax fikrado wacan curido abaa xisaabtan ahey marka I love you so much isku soo noqod kaloo wanaagsan dabcan mararka qaar qoraalka kor waxaan kusoo qoraa qolka magaciisa dabcan qaybta dhuubnaanta iyo iscaateynta iyo waa qolka dhuuba dhaxyar laakiin sideedaba qol walbood iga dhagaysataa ama channelkood iga dhagaysataa waa inaad adiga wax isku ogolaataa muhiimadda lecturekan ama waanadan ama dhiirigelintan waxay tahay waa inaad wax isku ogolaataa waxaad isku ogashahayne haddee oodo siday u kala koreysaa loo kala qaadaa ama canjeero ama laxoox siday u kala koreysaa loo kala qaadaa wax isku ogolow oo qaybtaas aad wax ka cabanayso adaa garanayo dadka qaarkood oo waanada soo raadsado dabiib ma soo raadsana waanayba soo raadsadeenba waanada dadkii raadi jiray oo dhihi jiray ciladaas haysato maxaa sameeya dhiirigelintan ka qaado xaggee ciladu kaaga taagan tahay biyo intay ku soo gelinaa layska moosaa ciladu xaggee taagan tahay intaa i dhegaysanaysay ama i dhegaysanaysid wax kala dhexbax ma qofaa ku dhibay ma dan adduunyaa ku dhibtay ma adaan isku kicinoon waxba fahmin ma caafimaad darre iyo cillad xag rabbi ka timid ilaa cudurkaba ilaahay baa keenay caafimaadkana ilaahay baa keenay waxa ku haystaa maxay yihiin ma jucjuuca da'daa ma jucjuuca nafaqa darraa ma dadkaad ku dayataadan wax fiican kaga dayanin haye adaa lagaa rabaa inaad noloshaada kontroosho anigu haddaan ku dhafro waxaan dan iigu jirin subxiida madaxa xanuunayan kasoo kacaya laakiin wax dani iigu jirto oon usii tacasirtay haddaan ka shaqeeyo xanuuni maa madaxa qoragaa tuurtid qajaftiisa lagama naxo lase hadda caawa habeenaan shaqaynaya waa u soo seexday okay waa u laba seexday weliba si aan caawa u shaqayn karaayo waayo dadkan la shaqeeya qaarkood USA degan yihiin qaarkood waxay degan yihiin maaragta Australia qaarkood Canada qaarada iga fogfogay degan yihiin xilliyada aniga saqada dhexe ii tahay ayay ayaga la heli karaa so sometimes markaan saan oo kale shaqeynayo habeen ayagaasaan ugu talagalay inaan la shaqeeyo qaaradaha iga fog degan so waa u laba seexdaa si waqtiga ayaga caadi maalin u tahay ama galab u tahay ama subax u tahay anigu ay iigu tahay ani aan fresh u ahay okay reer Australia oo kale markuu waagoodu baryo anigu midnight ay tahay laakiin haddaana seexanin ma hadli karo madaxay xanuunayo waa daale waqtigayga maanta waa soo qaatay laakiin markaan u soo laba seexdo ayagoo waagoodii baryayaan la kulmi karaa oon qadka isku haleeli karnaa ama xataa masajadooda aan ka jawaabi karaa ama adeegyada qolalka aan diri karaa haddaadan saas wax ugu talagelin ma wadi kartid dantaada masale eeyaa loogu seexdaa xaggee ka imaatay dantaada geed dheer iyo geed gaabanaa loo fuulaa intee ka imaatay dantaada haddii caafimaadkaada uu ku jiro inaad maalintii shaqaysato habeenka jiifto which ayba tahayba soobi laakiin hadday suurtagal ahayn ku talagal inaad adigu nasato anuma soomaaliyan kala gaaraa waa may qof walbo fartiin ii reeba nambarada hortiina yaallo xilligan anigu fresh ahay oon fadhiyo oon ka jawaabi karo fartiimihii baa tii munaasiba hadda qof messajkiisa furo oo qaaq igu dhaho inaan kuu jawaabaa qofkaas qaaq dhahay astaahilba maaha zam horaan kuu sii baloogaa maca salaamo kulaylkaagii karkaagii iyo qayladaada meeshaad kala timid la aad laakiin qofkii islaamaayo oo hadal wanaagsan oo weliba ah dadka aan la shaqayn karo waa kuu dadaalaa waa kuu soo jawaabaa haddaana kula shaqayn waa kaa xiraa qadka because qadkii fariiga ahay ma furno decembera inoo furi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo qadkii fariiga ahaa abuu fariid december oo soo noqonaa kaa xirima insha allah laakiin munaasibkiisa kusoo gala
kuwaan hortiina yaalla waa inta ka ballansan dabiibkaaga waa haddaa fahmi kartid af soomaali akhrisid khalaas maxaa kuu soo haray dhiirigelin intaan kuu soo dhigaa maalin walba dhegayso dhaqaaq danahaaga wax ka kala babedel intaas wehesho anuu amaan soomaali siday kuugu mahmahday oo dhan amaan baahi adduunyo allah kaafiye amaan wax kaala qaban karaa waa may intaan kuu aqaano baan ku siinahay aqligaaga la kaasho ilaahay ka sakow walaasha iga yaree waa kuwaanina waaye intaan kaa weynahaan kuu wax sheegayaa marka aniga wixii oo dhan ma wada haayo far kaligeedaa layidhi fool ma dhaqdo adiga lagaama maarmo haddaa cayilan tahay lagaama maarmo cayilka caafimaad allaha kuugu daro si caafimaad lehna allaha kaaga rido caata caafimaadla allaha ku siiyo aamiin cayilku waa dhaga adkaadaa markaa 35 sano dhaafto xilligaas waxaa isku dayaya inuu qadku soo galo howlgabkii hormoonka waa xilliga jirka uu isku bedelayo xusul buur haddaad weligaa buurneed anigu moogi weligaa cayilneed moogi laakiin haddaad weligaa jir qurux badan oo dhooban iska haysato medium size ah ya waxa hadda ku kala fidiyey hormoonkaagii isqaldooyo daayadkaagina waa qaldan yahay haddii la doono waa cunto soomaali maskaxdana waa tana guuxayso haddii ibni aadan ilaahaygii qalqay unbaa ka eedbeeli karo oo waa annaga hadda wadadan adduunyo ah oo baahideenu badan tahay marka xisaabtan marka lagu leeyahay waxay tahay wax wanaagsan isku soo kordhi haddaad doonto nusa saac soco oo socod isku soo kordhi fiidka seexo oo fiid seexashada isku soo kordhi positive thinking samee oo kelmado fiifiican ku fikir farxaannimada celcelisay naftirkeeda kaa rabtaa cunadaada qurxi oo qurxinay cuntadu kaa rabtaa waayaha fahan baahidaada fahan sometimes baahidaada lala gabadaa haddaad duu yahay mishinkaaga ama waxqabadkaagu inaad isyaro dhuubto 10 kiilo 20 kiilo iska rido muddo waa inaad magaalada ka fariisataa jimicsigaaga iyo masaajkaaga iyo qurxinta jirkaaga iyo nafaqayntaada iyo calool bixinta waa inaad aayahagaas waxaad qabsanaysa kusoo mashquushaa maxaa u malaynaysaa adigoo caada qalqal ku haleelay oo ugxaan daciif ku haleeshay oo hormoonkii kaa qaldamay waa inaad la gabataa waxaad soo fooci doontaa ama aad soo laba noqon doontaa markay kuu saxanto muraadkaagii lasay faqiiraataa shaqaa bilowday waa inaa isgabidaa ilaa faqriga ka baxdaa deyman haddii lagugu leeya iska soo kala nadiifidaa sadaqa la soo baxdaa qof markaas waxaysta markaa noqotaad facaa la jaan qaadi kartaa aawe maamaadii ahayd jiroo joogoo jinkaaga la dheel baahidaaga intaad daboolaysid ummadda waa laga fariistaa laakiin ka wara qofka baahidiisaba arki karinba waa qofka waxa taagan arki karin waxa soo socdana ma arko dadku way kaa kala leexdaan weliga allaha ma aragtay ama waa qiyaasi kartaa waa arki kartaa sidii loo joogaa qof meel inuu wax qabsaday oo meel ka soo baxay yaa heblaayo ma dhooftay heblaayo ma guursatay heblaayo guri may gadatay heblaayo adiga waxaa indhabaqaaqaa noqonaya dadka qaarkood intay aamusaanay fahmaan anaa is yeelay camal intay dadku wax qabsanayaan anigu waa jiifay anaa danahaygi gabayaa eeday waa runoo dantaada cidna kuma eedaysama dadka qaarna waa iska dhalacadee haa oo maba lee sheegine oo markay dhoofaysa way iga qarisee oo markay guursanaysa way iga qarisee oo markay dhasho way iga qarisee waa soo haadaynaa dadka dhan howlay haystaan qaaraa aqoon baranooyo diin iyo maado qaaraa shaqaysanooyo xoolo tabcanooyo qaaraa diyaargaroobaya inay waddamadii degan yihiin ka guuraan ama magaalada ka guuraan qaaraa aroos isku diyaarinooyo qaaraa maxkamada u socotaa adi maa og wixii lagu sheegay le arkaysaa taas waa loo yidhaha caqliga bini'aadanka indhuhu ku jira wixii lagu hordhigo heblaayan ba iyo ta qorayno baawar cad magaalada ku wado markaa arto xayaabsa bismillaahi raxmaan oo heblaayo luuqadaba xataa ma aqoonay oo heblaayo markay imaanaysa waddanka waa ogaaye heblaayo hoose howl u samaysanaysay maxaa loo yiri siraa weel lama salgaaro sometimes heblaayo way dhowbatee ma ugula talagalay ahayd ma bugtaa ma walwashay maxaa hilibka ka riday heblaayo ma sokoraa ku dhacday inta badan soomaali u fiirso markay arkaan qof buurnaayo dhowbta xilli ma xanuunsan tahay xanuun basay u kacayaan ilaa xanuunkaa dadka dhammeeye alla lama aqoonsanaa heblaayo say u baaba'day haddii la doono heblaayo cuntadii ka go'day qudaaray bilowday nafaqooyinay bilowday jimicsigay bilowday caloolay bixday heblaayo qarashay nafteeda gelida siday qaabkaan u noqoto si hadhow u daashooto ee labiska noocay rabto u qaadato ee magaalada yaa daadax ku marto mar dheexa iyadoo u dhareeraysa kaag iyo sokor iyo shax macaan yacay iska dhaxday yaa kuu sheegaaday
yaa kuu sheegaa ma maqasha yaa kuu sheegaa naftirkeeda ma maqasha dadka qaar gobollo iska dhaafa waddamo inay u dhoofaanay rabaan inay isi soo dhuudhuujiyaanay rabaan inay isi soo cilaajiyaan rabaan inay soo xajiyaanay rabaan qof walba wuxuu wato allaha la garab galo laakiin cid kuu sheegaysa ma leh weliba dadka qaar waxay jecel yihiin maadaama ay soo sabreen ay soo daaleen ay muddo naftooda soo dhuudhuujinayeen last minute ya in la maqlo ama markay soo dambagteen inay dhahaan waddan hebel aan ka soo noqday ila gara way dhacdaa because dadka qaar waxay aaminsan yihiin hadday muraadkooda sheegaan inay barqa leedahay baabur cagaha ka banjira camal so hadduu cadowgu badan yahay oo dhowr mar aragtay waxba inay kuu hagaagi waayeen af daboolan dahab sirahaaga lama sheego ha dadka qaarkood haddaad aragtay dad maasha allah kaa daba dhehaynin abbaa waa laga gaabsadaa ha isku halayn waa lagu halaabaa halayiri isku halayn badan haddayna jirin de waad ku halaabaysaa caadi iska dhig marka aayahaaga adigoo adaa u xilsaaran maanta haddaad inta soo qubaysato soo kareemsato soo carfido dhar nadiifa soo xirato adaa naftaada juhdi geliyey cidnana taankiyu kagama fadhidid haddaad maanta oogadaada intaa nafaqaysa aa qorxley noqotid oo 10 sano hadda ka hor saa u ekeed aad dib u noqotid dhalaal adiga dhan ya dadku way ku fiirinaan qaarkood waxay ku leeyihiin maasha allah yaantaa qurux badnaatay ya waxaa jira ii sheeg iga dabagey kareem kaa dilawday kareem maahan abaa dhuuntaana soo qoysatay laakiin laguma ogo haddana maba sidee taa wax ma u sheegi kartid dadka qaarkood hadday xataa sheegaan hawshay wataan waxaa laga yaabaa inuu culays ka fuulo because dadku ma wada rabaan horumarkaaga isku roon ma ruqataa leeli isku roon way qaridaa siraheeda qarso no problem wixii khayr lama qariyo ilaahay baa ku siiyey waxaad cunto waxaad cabto inaad naftaada xeerido inaad isku kaalmaydo inaad baahidaada fahanto ilaahay ku garasiiyey maasha allah qarso sirahaaga no problem waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo dhiirigelinta intay inoo taalaa qolalka hoose fideoga iyo adeega israacayo haddaad fadhida dabcan waad arki doontaa markaan soo bilaabay adeega insha allah dhiirigelinta laakiin dhammaantiina idiin ogolaa caafimaadkiina dhiirigeliya farxadiina allah idiin xifdiya dhiirigeliya midda kale af daboolan dahab waa la dhahay ani ma aqaan dadka aad saaxiibka la tahay inta ilaahay wax kuugu daro kuu ehela haddaad shaqaydo meeshaa ka shaqaydo mar walba ducayso waddadaad maraysa nabad ilaahay inuu kaaga dhigo dadkana inta xun marnaba laguma darsado meel hadday dhibaato ka dhacdo waa laga rooraa looma rooro okay qofka ku damqo ama hadal kugu damqo ama si kaleba kugu damqo waa laga leexdaa meeshuu damqashadaas la aada asay jirtaa adii soo matid qof hadal macaan oo qalbi wanaagsan intaas naftirkeeda inaa xifdidaa lagaa raba allahna xifdiye waayo maalin kasta qof baariya lama helo saaxiibkaa kuma caddeeyo kuma madoobeyaa la dhahay haddaad dad xun ku dayato adoo sidoodii oo kale xunaad biri is arkaysaa ka soo noqo xumaha allah naga wada xifdiye dhammaanteenba samaha wanaaga horumarka quality-ga nolosha iyo raalli ku noqo sidoo ilaahay noloshaada ka yeelay haddaad buuran tahay raalli isku noqo haddaad dhuuban tahay raalli isku noqo haddaad gaaban tahay haddaad dheer tahay xataa kala qalloocdo ilaahay baa kuu qadaray adiga maa soo samaystay jirkaaga waa may cijo haddayna xanuunta cabaadkeenna waad aragteen marka just alxamdulilah ku dheh sidaada markaa saas qalbiga kuu qanacsan yahayna waxaa tahay qani ciduna kaama qaadi karto hadda qani xoola haddaa haysato oo tijaar caadi oo lacag haysta aad tahay anytime inta lagu ataagaa lagaa qaada karaa laakiin qaniga qalbiga cidu kaama qaadi karto ilaa ilaahay amarkiisa kugu dhaca maahane ka alla magan I love you so much meeshu waa meel waano waa meel dhegaysi waa meel saaxiib gabdhaha aniga aan la shaqeeyo waa dadka aaladda ka adeegta oo keliya haddana shaqaysto oo dheefta gadan karo ciladaha anaan ka hadlo oo dhan dheeftoodan dadka baraa waa haddii aad ballanta dhigan karta haddaa ballanta dhigan karin iga raalli ahow khayr allah ku sii meeshaada allah kuu barakeeyo adiga waxaa qabsan kartid qabso because waxaa adi qabsan kartid waa free waa limitless xisaab ma leh waa bilaa xisaab cab caafimaad ku ceesh raalli ku noqo siduu ilaahay kaaga yeela caafimaadkaaga laakiin haddaa rabta inaa ardada ka mid noqotid dabiib iyo dadaal qaybtaas waa private ardadaan rabaa inaa ka mid noqdo dheh brogramada soo socda oo sanadka cusubane ma jirayso cashir bixin fadlan ogaada gabdhaha hadda ii reebaya dhahayo cashir bixinta kalaan la qabsanaa 5 sana saas idii kugu fadhiya I am tired halkiisi saaco u noqon doonaa
qaado macsalaamo qaado macsalaamo ha ku daya wareerka waa marka haddase waa idiin furan yihiin qolalka insha allah soo dhawaada okay sidaa wuxuu rabtid ilaahay baa garanayo sida kuu roonna ilaahay baa garanayo sida xaalku yahayna waa inuu noqdaa allaha ka yeelee balance saxnaan caafimaad saxan jirka oogadiisoo saxan qalbiga iyo nagaadkiisoo saxan waayaha ood wax ka fahansan tahay waxaa la yidhi ninaan dhul marin dhaayo ma leh waayihii ood saa intaad u martay experience badan aad heshay ood isbarbar dhigtay noloshaada iyo sidii adduunka maanta horumar lagu gaaro marka xisaabtan xoogaa yar wuxuu u baahan yahay inaad xasil u noqoto daaseed anyone xisaabtami karo inuu yariisoo friidaa jiro qof waayeelo oo lagu xisaabay kor waayeelo wada indho oo fariidaa jiro dad inta dhexa ordaayo oon waxba saasa faraha ku haynina way jirtaa laakiin annaka dhan maxaan jecelnahay inaan fahansannahay xaaladeena marka cuncab caafimaadku ceesh isku roon ma ruqataa la dhahay caatayn wanaagsanna allaha idin siiyo ama caafimaadka marka la saxaaya xagga caatada oo caafimaad leh caata caafimaad leh tira soomaalida I love you so much waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo cafi caafimaad dhammaantiin waa idin salaamaya inta dhiirigelinta jecel khayr allaha idin siiyo saaxiibtinimo wanaagsan inta nagu cusub mar walba noo imaato soo dhawaada welcome aniga si toosa dadka ulama hadlo khayr allaha idin sii fartiinaa la reebaa wadamada aan la shaqayninna December ayaan idin furi doonaa qadka friiga ah wadamada aan la shaqeyno waa idiin soo jawaabaa fadlan saas ogaada dhammaantiin waa salaamantiin salaamu calaykum